wabar Cabdille oo maalinka labaad ku sugan magaalada Wajeer ayaa maanta la kulmay beesha Dagoodiye kumanaan qof ayaa isugu soo baxeen iskuulka wabar Cabdille Academy oo horey loo aqoon jiray Sunrise Academy madaxda ka soo qayb galeen xafladan ayaa ka hadleen midnimada waxaan leeyahay midnimada waxay ku imaanaysaa idina in cadaaladna la isu sameeyo xaqna la isu sameeyo ma tabisma marka wabarka midnimada waa lagu duceynaaye annagana xaq iyo cadaaladna sameeyno hada dadkana isu keenaar waxaan yaryarooy maana siyaasiga ay ka hadlayeen ayaga ay u taala shicibka waa fiyow yahay hada ay ka imaadaan west hada ay ka imaadaan eldas hada ay ka imaadaan east hada ay ka imaadaan tarbaja meesha loo badan yahay shicibka dib ma qabo warso saas ma waxa dibka qabo waa dadkan adiga kula fadhiyo sidiis ugu yeeri lahayd iskugu keeni lahayd waa bilaabatay Allah ku garab gal anaguna ku kabanahay shicibka Wajeer walaalayaal ayaga gacanta haday isgeliyeen anaga maxaan iskugu dhifeynaa anaga ma cudurana dhaxyeel walaaltinimo iyo wanaag waxaan ahayn miyaana dhaxyeel ayaga bihishii anagana maxaan ka nahay inaan gacan ku siino Soomaa waxaan ku dara midnimada Dagoodiye ayaa sharaf noo ah maadaama adiga naftaada midnimada aad ugu shaqeyso nabadgelyada aad ka shaqeyso aniga waxaan doonaa in midnimada Dagoodiye in oo ama Saransoor aad u dacoyso aad ka dacoyso si markaan ka dama dhaxdeena annagu reer Wajeer ahaan dhaxdayna burburkii waxba ay ka yeerin oon wada shaqeyno ayaanu doonaynaa dawladda tiir la doortay tii ilaahay aad ka dhiga farxad Allah ka dhiga kii kaloo qabta saas oo kale turunduradu waa laga baxay xanka waa laga baxay midnimadii aan jirta waxaas rabtiin taas meel ay in qabateen gabdhihii waa wiilin wixii gabar noqdar barakawin culumadana kor diinteeda Allah ka dhigo waxay dhanka kale ka hadleen arrimaha amaanka kala waa arinta maanta dhacday arinta xalay dhacday waan ka xunnaa maan ogolaanayna annaka nalama cunsiinaya nalama cabsiinaya dhiigayne waxaan rabnaa inaan gacanta taagana kuwa ayaka meel kasto ay ka imaadaan oo dhibaatada iyo rabshada kuwa dadkeena iyo dalkeena inuu Ilaahay naga soo qabta meesha ka joogaan maanta taariikh xumo iyo magac xumo ay noo keeneen waayo waxay tusayaan baxsa istaajisi Kenyaankaas kala saaray adigoo dhibaato kale oo qabiil ku dhisan ama diin ku dhisan diintaasna muslimnimada kuma jirto diintooda ay ka garanayeen yaas nu hagaajin waxaan leenahay walaalayaal waana maqlahaysiini dhul kaligiin xirku kuma noolidin dhulka joogtiin war Ilaahay ka cabsade dadkiina ku soo noqde taa janna ima geynaysa naara in geynaysa wadankiina ku soo noqde dadkiina ku soo noqdo dibkaas naga dhaafo kala reer Wajeero maanta dhibaatay weyn shalay dhacday in dad lagu laayay ku tulo waa maqasheen maalin kasta dibkaas aan hayst maalin kasta al-shabaab sheekadeeda meesha laga sheega Ilaahay noo bari inay dhaafaan ama Ilaahay soo hanuuniyo si kastaba wabarka beesha Dagoodiye wabar Cabdille wabar Cabdi ayaa wali ku sii nagaani doona magaalada Wajeer